xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya ayaa ka hayaantay halka deganaanshaha waxayna u ambabaxday aag aan saadaalinta iyo siyaasadda looga shaqaynin waa goob ay ka taliyaan dhinacyada wada tashigu dhiba ama ka caagan waana halka ay marar badan qalloocyada waaweyn ee dib u dhaca dalku ka dhashaan waa aag si weyn looga cabsada marka laga hadlayo xagga siyaasadda iyo ka hadalkeeda tabinteenna waxaynu ku gorfaynaynaa dhacdooyinka la filan karo qoraallada ay soo saareen Rooble iyo Farmaajo waxa ka dhex muuqda maxay tahay jihada kadib la aadi karo marka xaaladdan ay taagan tahay waa su'aasha u dambaysa ee aanu gorfayn doono mar kale isqorid siyaasadeed ayaa durba lagu tilmaamayaa go'aamada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay dib u soo celiyeen ficiladii dhacay sanadkii 2008 xilligaas waxa ay saayay Cabdullaahi Yuusuf iyo Nuur Cadde laakiin jawiga iyo tanaasulkuba sidan waa uu ka duwanaa waxa aan shaki lahayn inay hadda ka gudubtay xayndaabka siyaasadda oo ay aadi doonto xayndaabka isqabadka madaxweyne Farmaajo ayaa u magacaabay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji oo ahaa ubuucda khilaafka Rooble iyo Farmaajo agaasimihii hore ee Niza waa mid ka mid ah xilalka ugu sarreeya amniga dalka saamayn badan ayuu qofka booskan jooga ku leeyahay dhammaan arrimaha la xiriira amniga guud ee dalka iyo shirka amniga qarankaba waa boos xasaanad siyaasadeed leh oo qofka jooga uu la mid yahay qof waliba boos sare xilka ka haya gaashaanla sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud waxa laga dhigay agaasimaha kumeel gaarka ee Niisa Faray waa mid ka mid ah xubnaha lagu eedeynayo inay qayb ka ahaayeen ama ka noqon karaanba kiiska Ikraam Tahliil hadda waxa uu ahaa taliyaha Niisa ee gobolka Banaadir arrinta ugu weyn ee keenidiisa waxa loo arkaa in Farmaajo uusan doonanin cid kale oo bannaanka ka timaada ay saldhigata Niisa halkaasna aysan noqon meesha looga soo dawlo qorshihiisa siyaasadeed iyo galdacwadeed saamayn ku yeeshay saaxiibadiis labadan dhacdaba waxa ay muujinayaan in Farmaajo wali ku jira dagaal siyaasadeed iyo inaan saaxiibkiis Fahad Yaasiin la isku dayin in lagala hoos baxo ama ugu yaraanba laga reebo tareenka siyaasadda Soomaaliya waxaase la rumaysan yahay in haddii ay soo baxdo in baaritaan la geliyo Fahad ay ka dhignaan doonto inuusan u tartamin isdoorasho sidaas oo kalena uu noqon doono xukun suge haddii eedayn ay timaado Rooblena uu bareeray inuu cagaha u geliyo dhammaan kiisaska la xiriira waayitaanka Ikraam Tahliil oo u baahan faahfaahin dheeraad ah falanqeeyaasha qaarkood waxa ay leeyihiin go'aanka fiila Soomaaliya ee Farmaajo ayaa ku suntanaa in xaaladdu adkaato kadib la helo cid dhexdhexaadisa labada garab la isugu yimaado aag dhexe si looga gudbo marxaladdan oo diiradda loo saaro tubta doorashooyinka dhinaca kale ra'iisul wasaare Rooble ayaa ka jawaabay isla qoraalka Farmaajo aragtiyahan wuxuu soo dhaweeyay in Fahad Yaasiin banneeyo booska Niisa wuxuu dafiray si buuxda dhammaan qoraallada kale ee ku xardhanaa qoraalka beddelkeeda waxa uu faray agaasimaha kumeel gaarka ee Niisa Bashiir Goobe ee uu magacaabay inuu shaqada la wareego Rooble qoraalkiisa wuxuu ku muujiyay war weyn oo ah in Farmaajo ka soo horjeedo dhammaan inay cadaalad hesho Ikraam Tahliil waa dhawaaqan si fudud ku dhammaan doonin waana mid taaban doonta mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha hadda xilka haya sidaas oo kale waa mid abuuri doonta bannaanbaxyo iyo rabshado hubaysan xataa Rooble wuxuu u muuqdaa inuu go'aamiyey inuu soo afjaro kaararka siyaasadeed ee Fahad iyo Farmaajo marka loo eego isticmaalka erayadii kulankii shalay ee Muqdisho waraaqda qoraalka ah iyo dhammaan dhacdooyinka ku gadaabanna waxa ay ka dhigan yihiin in Rooble go'aansaday inuu si bareera u galo dhacdooyinkan isla qoraalka ra'iisul wasaaraha waxa lagu cadeeyay in shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho ay sameeyaan isgarab istaag waa war aan u baahnayn faalayn oo ah in la sameeyo bannaanbaxyo iyo talaabo kasta oo looga hor imaanayo warka Farmaajo hadda iyo xaajada Farmaajo iyo Rooble si aan qarsoonayn ayay ugu tartami doonaan awoodda ciidanka si gaar ah marka ay joogto yaan noqonaya agaasimaha Niisa Bashiir Goobe oo uu magacaabay Rooble mise Yaasiin Cabdullaahi oo uu magacaabay Farmaajo ayaa xilka la wareegi doona si su'aashan jawaabteeda loo helo waa in labada dhinacba goobta cid ay tagtaa hadda xafiiska waxa ku xoogan Yaasiin Faray maadaama uu yahay taliye ciidan oo gudaha Niisa ku jira Bashiir Goobe oo dibad jooga haddii uu ra'iisul wasaare Rooble go'aansado inuu galbiyo oo geeyo xarunta maxaa dhici kara ayaa la isweydiinayaa haddii uu yimaado iska horimaad hubaysan
xaaladan oo kale sidee ayaa loo wajihi doonaa xabad dhacda yaa ku guulaysan doona hoggaanka nisa ayana waa su'aal kale oo jawaabteedu ay tahay mid adag maadaama dhammaan dhinacyadu ay hadda weli joogaan habka qoraalka laakiin aan shaki badan laga qabin inay xagga awooddana mar kale isla aadaan ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda